أولا مقعي waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif waxaan qoray buug la yiraahdo xal u hel naftaada oo soo baxay 2018 bishii labaad waxaan ku soo bandhigay gobolka Bari Boosaaso sidoo kale waxaan ku soo bandhigay Garowe maantayna waxaan aad iyo aad u jeclaystay inaan la wadaago tartiin baan u imid inaan idinla wadaago buugaan maadaama aad tihiin mustaqbalkii dalkayaga iyo dadkayaga maantay dalkeena iyo dadkayagu mustaqbalkoodu wuxuu ku xiran yahay idinka maantay heerka aad idinku isgaarsiisaan baa uu dalkeenuna gaarayaa hadduu ilaahay idmo mustaqbalka dal walibana waxa u dadaala oo dhexda u xirta waa dhalinyaradiisa dal dhalinyaradiisu baaba'day oo burburtay oo macne ahaan iyo maskax ahaan iyo aqoon ahaan ay u burburtay dalkaasi mustaqbalkiisu wuxuu ku dambeeyaa halaag iyo hoog markay idinku waxaa tihiin aayaheennii iyo mustaqbalkeennii markay waxaan idinkugu imid inaan idinla wadaago buugaan oo dhammaan u xambaarsan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhalinyaradooda in ay fadhiga ka kacaan waxaa la gaaray waqtigii aan baraarugi lahayn oo aan dhisi lahayn waxbarashadeena iyo aqoonteena si aan ula tartanno caalamka markay cilad baa ina haysata haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ciladaas oo ah ma garab qabanno oo ma bush abgarayno oo garabkiisa ma istaagno qofkeena u istaagay oo u baahan inuu horumar gaaro ummadana gaarsiiyo ninkan leyrka soo saaray oo Tom Edison la yiraahdo maxaa kalifay inuu leyr soo saaro waxaa kalifay dadkiisa kaligiis ma ahan markii uu fikradan la yimid inuu caalamka ifiyo habeenkana maalin u bedelo waxaa garab qabtay intaas oo shirkadood oo ku maalgeliyay in fikirkiisa la hormariyo ugu dambeynna waa gaaray waxa taas kalifay markay waa dadkiisii weeyo oo fahansan waaqica jira fahansan in ay ku xiran tahay mustaqbalkoodu qofkoodan in ay dhiirigeliyaan ayna gacan qabtaan markay waxaan rabaa in idinku aad noqotaan dadkiina biri ka maalin qofka rabaa inuu dalkan wax ku soo kordhiyo horumarkiisa iyo midnimadiisa ka qayb qaato tiknoolajiyadiisa iyo horumarkiisana kor u qaado qofkii dhiirigelin lahaa waa adiga qofkii soo saari lahaana waa adiga marka buuga xal u hel naftaada ciwaankan waxaan ugu dooray waa qofku inuu ka baxo mugdiga inuu ka baxo inuu maskaxdiisa soo jeediyo maanta iyo dhalinyaro badan baa meesha fadhida waxa laga yaabaa inuu meeshan dhalinyarada mid kasto kamida inuu imaanayo waqtiguna waa yar yahay waan soo koobaya insha Allah inuu imaanayo kaliya dugsi sare dhamee ha ka haro horta waxbarashadan dhibteedu ha ka harto maya adigu maanta waxa wax u baranaysaa kaliya naftaada ma ahan waa wadankaaga wax u baranaysaa ciwaanada haddaan principalska inta ugu horeyso oo muhiimka ah idinla wadaago waxa weeye ugu horeyn waa maxay guushu definition badan baa jira qeexitaano badan baa jira laakiin anigu waxaan ku qeexay guusha wax walba oo qiimo leh oo qofka noloshiisa bedelaya oo uu ka guul gaaro waxyaalo badan oo waxa jira aan macno lahayn aan guulna ku gaarsiinayn laakiin wax kasto macno leh lambarka labaad qofka guuleystaha uu naftiisu ku kalsoon yahay inaad naftiina ku kalsoonaataan meel walba oo joogtaan waxbarashadiina iyo aqoontiina ha mar walba hadii xitaa waxa laga yaabaa fasalka markuu macallinka kugu jiro in adoo su'aashay garanaya aad baqdid ma ahayna baqdid waa inaad soo bandhigtid kartidaada iyo kalsoonida aad naftaada ku qabtid waa in aad fasalkii markaad ku jirtid aad ardada aad u gudbin kartid aqoontaada kaliya ma ahan macallinkuna kaligiis ma ahan midka adiga waxbarashada kugu shubi kara waa adiga qofka wax isbari kara hadda anigu luqada carabiga ana isbaray
macallinna ima barin asaasiyaadka markaan bartay bas intii ka dambaysay suugaanteeda iyo ku hadalkeeda iyo waxeedoo dhan anaa isbaray midda labaad xisaabiyana waa ahay anaa isbaray cidna ima barin marka waxa kale waxaad ogaataa inaad adigu wax isbari kartid naftaada aad isbari kartid waxaa buuggan waxaa idiin dhigay maktabadda Ar-Risaala ayadaad ka qaadan kartaan ciwaano badan oo aad u muhiima baa ku jira waxaan kusoo khatimayaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dhibaatada inaga saaro ilaahay waxaan ka baryayaa in maanta dalkeenu waa burbursan yahay dadkii dhibaatada ka saari lahaa ilaahay inuu idinka dhigo biidni illaahi alkariim